beelaha harti gaar ahaan beesha dhulbaante ayaa waxa ay soo markaasi dayactireen gabi ahaanba taangiyaashii fadhiyey si ay markaasi uga qayb qaataan xoreynta godka gooja cadde oo ah barta kaliya ay ciidamada SNM kaga sugan yihiin guud ahaan gobolka Sool. saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa lagu arkayay degmooyinka Woodward iyo Buuhoodle ee gobolka Cayn oo markaasi ka soo ruqaansanayaan dabaabaad iyo taangiyaal yaalay kuwaas oo aan markaasi ahaa kuwa dagaal sugayaal ah isla markaana muddo la xanaaneynayay. degmada Woodward ayaa la soo warinayaa in taangiyaal dhowr oo yaalay laba kamid ah ay u diyaar garoobeen inay u ruqaansadaan dhanka gooja cadde iyadoo dhanka Buuhoodlana taangiyaashii yaalay gabi ahaanba ay diyaar garow ugu jiraan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalka gooja cadde. horey taangiyaal ay lahaayeen reer SSC isla markaana yaalay Yagori ayaa dagaalka si fiican uga qayb qaadanayay bilihii la soo dhaafay ilaa iyo laba taangi ayaa ka dagaalamayay jiidaha hore ee gobolka Sool. waxaana jiray sidoo kale taangiyaal kale oo gurmad ahaa oo ka yimid gobolka Mudug kuwaas oo soo xoojiyay dabaabadaha iyo taangiyaasha dagaalka ka qayb qaadanaya. Somaliland ayaa haatan waxay la kulmaysaa walaac xoogan ilaa iyo in ka badan 8 taangi ayaa dadka deegaanku ay diyaarsadeen kuwaas oo markaasi ka kala yimid gobolada Mudug, Cayn iyo sidoo kale Sool. taangiyaashaas ayaa waxaa sidoo kale sii weheliya hubka madaafiicda goobta waxaana la soo warinayaa in qoryaha madaafiicda ee ridada dheer ee kala ah ma 30 iyo da 30 in ay sidoo kale haatan ay soo gaareen difaacyada Buuhoodle qaarkoodna ay ku jiraan diyaar garow. dadka reer SSC Khaatumo ayaa diyaar u ah qiimo kasto ay u kacayso naf iyo maal ah in ay ku markaasi kiciyaan ama ay ku bixiyaan soo afjaridda dagaalka 6 bilood jirsaday ama 6 bilood si dhaafaya ee February 6 ka bilowday ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo sidoo kale daafaha gobolka Sool ugu dambeyntiina ciidamada SNM lagu soo aruuriyay gooja cadde oo godka ay ku dhumaalaysanayaan. haddaba dagaalka ayaa haatan isku bedeli doona weeraro culus oo ay qaadaan ciidamada SSC iyadoo diyaar garowgii ugu dambeeyay ay sameeyeen bilii la soo dhaafay gacanna way ku dagaalamayeen dadka reer SSC gacanta kalena waxay ku soo gadanayeen hub baaxadiisa aan la xisaabi karin. ciidamada SNM ayaa dareemaya walaac iyo cabsi aad u xoog badan waxaana taa barbar socota daawadayaal gurmadyo iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo ka imaanaya gobollo kala gedisan kuwaas oo ah gurmadyo hor leh oo ka qayb qaadanaya xoojinta dagaalada SSC. taangiyaashan ayaa sidoo kale soo afjari doona 4 taangi oo qaarkood ay kharaab ahaayeen oo ay ciidamada SNM ay wateen amaba ay isticmaalayeen waana 4 taangi ee kaliya ee ay haystaan dagaalkan ay kula jireen. taangiyaashan ayaa sidoo kale la rajeynayaa inay dagaalka wax weyn ay ka bedeli doonaan isla markaana godka gooja cadde ay ka saari doonaan ciidamada SNM. taangiyaashan ayaa daawadayaal si weyn uga qayb qaadan doona dagaalada ka soconaya gooja cadde oo ah goobta kaliya ee la isku horfadhiyo. beelaha dhulbaante iyo guud ahaan harti ayaa u muuqanaya inay ka faa'iideen dagaalka inkastoo dagaalka aynu ognahay in labada dhinacba uu khasaare keenay xagga dhimashada marka la eego dadka deegaanku aad ayay u khasaare yar yihiin oo tiradu aad ayay u yartaa marka la barbar dhigo ciidamada SNM. dhinaca kale waxay ka faa'iideen isqalabayn iyo subayn aan caadi ahayn iyo waliba hubkii iyo dabaabadii hore ee yaalay ee markaasi la xanaaneynayay oo si markaasi degdeg ah loo kiciyo. waxaana xusid mudan modelka taangiyaasha ay haystaan reer SSC inay yihiin taangiyadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya la siiyo intaanay burburin ka hor kuwaas oo madaafiic aad u badanna looga soo gaday dalka dibadiisa. hubka noocyadiisa kala gedisan sida suugaga dhisabanada shilkayaasha afar dhuumoodyada iyo laba dhuumoodyada ah ayaa wax caadi ah ka noqday in ay dadku si degdeg ah u soo gataan deegaanada SSC. maanta waxaa la arkayay sidoo kale ciidamo horle oo ka soo ruqaansaday aaga Buuhoodle gobolka Cayn kuwaas oo ku biiraya difacdaha ciidanka ah iyo sidoo kale ciidamada naftooda horeyaasha ah ee ka qayb qaadanaya dagaalka soo afjaridda ee ciidanka SNM. waxaana gurmadyadan uu ku soo aadaya Jeero Muuse Biixi Cabdi Ciyaal dhowr iyo 10 jir ah oo maalmihii la soo dhaafay uu soo daldalayay oo xogaaya kuwaas oo waxaaba ahaan inuu shito ugu talagalay. dhanka kale beesha Warsangeli ay ahayd markii dhawaan ay keeneen ciidamo iyo gaadiid dagaal oo hor leh kuwaas oo ka yimid gobolka Sanaag isla markaana ka qayb noqonaya dagaalada lagula jiro jabhadda SNM.
si kastoo ahaataba ciidamada SNM ayaa 15 sano la soo dhaafay si baadil ah oo gardarro ah oo kibir ah ay ku haysteen deegaanada SSC dadka Soomaaliyeed ee taageersan midnimada madax bannaanida iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed oo la soo halgamay ay ku khasbayeen calan gooni ah iyo sidoo kale caadifad gooni ah iyo nidaam jabhadaysan oo qorshaysan ama qabiilaysan kuwaas oo ay rabeen dadka inay sanka kaga talaan riyo maalmeed ay koox gaari ay suwisay qabyaalada ayaa heer kulkeedu uu ahaa mid sareeya dhibaataynta shacabka ee hooyooyinku ay ku jiraan iyo rasaasaynta dadka oo xabsiyada lagu guro ayaa ahayd wax aad u soo noqnoqda tacdiyaad weyn ayaa laga diiwaangeliyay deegaanada SSC waxaana intaas u sii dheeraa madax duubasho loo geysanayay dadka deegaanka oo looga dilay in ka badan 150 ruux oo ahaa indheergaradkii mudaharaad bilowday December 27keedii 2022 kana bilowday dil loo geystay nin haldoor ahaa oo lagu magacaabi jiray Hadraawi Ilaahay u naxariistee ayaa daawadayaal oo ahaa shakhsi ugu dambeeyay ee Sool lagu dilo ayaa waxa uu keenay in ciidanka maamulka Soomaaliland isku dayaan in ay jajoob iyo khasab ay ku hor istaagaan dhowr 20 qofood ilaa iyo ugu yaraan 23 qof ayaa ku geeriyooday rasaas nolol iyo dhishikayaal iyo shilkayaal iyo seekaawiyaal ay u adeegsadeen dadkii shacabka ahaa sidoo kale 85 ruux in ka badan ayaa ku dhaawacantay rasaastaas dadka birmageedada ee shacabka loo adeegsaday kacdoonka ayaa noqday mid la hor istaagi waayay waxaana kacdoonkaasi uu ka dhashay in garaadka beesha jaamac siyaad jaamac garaad Ismaaciil oo isugu yeero dhammaan garaadada beelaha dhulbaantay oo ku jiro garaadka guud ee beesha dhulbaantay garaad jaamac garaad cali magaalada Laascaanood ayaa shir uu ka soconayay muddo ka badan 2 toddobaad ugu dambeyntii 6 February ayaa la rabay in la soo saaro mowqifka iyo go'aanka oo ah gabi ahaanba ciidanka jabhadda SNM in deegaanada isaga baxaan si nabada intaanay balaayo ka dhicin sayay qaraarka ay sii hayeen iyo xogta oo soo gaartay ama si hoose ay u heleen ayay ku bedeleen in aan inta aan natiijada lagu dhawaaqin go'aanada inay xabad ka bilaabaan magaalada Laascaanood isla subaxaas ba ciidamo aad u fara badan iyo saraakiil badan ayaa ciid ka hoos maray kuwaas oo kamid ahaa jabhadda SNM dagaal maalmo qaatay kadibna waxa lagu guuleystay in magaalada laga soo riixo ugu dambeyntiina waxa laga qabsaday guriga gobolka iyo goobo kale oo ay ka deganayeen duleedka magaalada ayadoo markii ugu dambeysay lagu shubay godka Gooja Cadde dagaalka oo muddo badan soconayay ayaa waxa ku soo biiray beelaha Majeerteen Ursangeli Dashiishe iyo guud ahaan beelaha Harti ayaa dagaalka gadaal kaga soo biiray waa tahay guul baan u rajaynaynaa RSC dhinaca kale daawadayaal si shargaray muuqaalka ciidamada Yuhuudda ayaa waxa ay weerar irkay dhulka ay ku soo qaadeen magaalada Jinayn Falastiiniintu ay leedahay kuna taala daanta galbeed waxa la soo warinayaa in dhimasho aad u badan iyo dhaawac fara badan ay soo gaareen dad rayid ah oo waxba galabsan diyaarado iyo tawaangi iyo sidoo kale askar aad u fara badan ayaa dagaalka qayb ka ah Yuhuudda ayaa cadaadis baan ku haysa yeelayn dadka shacabka ee reer Falastiin waxaana ugu daran Carabta oo ay ugu horeeyaan dawladaha Imaaraadka iyo dawlado kale kuwaas oo cilaaqaad fiican iyo xiriir fiican oo dhow la yeeshay Yuhuudda oo wali dadkii laynta ku sii haysa Ilaahay u gargaar guud ahaan muslimiinta ay ugu horeeyaan reer Falastiin si sheergaree muuqaalkan waana mahadsantiin saaxiibayaal nagu soo biira subscribe iyo follow dhaha daawada si aad u hesho warar xaqiiq ah iyo muuqaalo dheelitiran oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay iyo macluumaad sir ah ku soo biir barteena Facebook ee qaranka TV follow de barteena Facebook like saar muuqaalada si ay u faafaan sina share gare sidoo kale barteena YouTube ee qaranka TV subscribe de gambaleelka furo muuqaaladana like saar